kusoo dhawaada halkan waa shirkadda Dalsoor nashqada badanna inaan information yar kooban ka siino shaqadani walow ay tahay nashqad dhulkeedu uu warab leeyahay oo qalqalooco haddana cabir ahaan waxaan oran karaa waxay la mid tahay ku dhowdahay dhul 18 mitir iyo 24 mitir waxaanu ka qorsheynay oo nashqada dhulkan aan ka dhex sameynay nashqad ka kooban G+1 ama ground floor iyo terrace floor iyo qayb surface oo loogu talagalay outdoor kitchen ama kitchen dibadda iyo ma garanaysaa service-kii wax lagu adeeganayay marka xagga gudaha markaad u timaadid nashqadan qaybta ground floor-ka ee hoose waxay ka kooban tahay qol hurdo kitchen oo indoor kitchen oo aad weyn oo isla markaana qalabaysan oo ay ku xidhan yihiin kitchen cabinet-kii iyo wixii loogu talagalay dhammaystiran sidoo kale waxaa ku yaala xagga hoose fadhi aad weyn oo obina sidoo kale waxaa ku yaala laba suuli oo mid uu raacsan yahay qolka midna waxa weeyaan kii public ahaa oo loogu talagalay dadka ma garanaysaa kale in iska isticmaalaan sidoo kale xagga hoose wuxuu ku leeyahay meel baranda ah la iska fadhiisan karo marka xagga sare la aado upstairs-ka la tago sidoo kale wuxuu ka kooban yahay gurigani 4 hurdo oo waasac oo mid yahay kii master bedroom-ka aad iyo aad u waasac u yahay wuxuu leeyahay laba balcony wuxuu leeyahay laba suuli saduuxa u sareeya iyadana waa dhul la iskaga leersan karo loo bixi karo sida oo kale dhulkan qofka waxaan ugu dhisan gareynay dhisankiisa inuu u soo helo parking fiican space fiican wuxuu ku beeran karo baabuur fiican u dhigan karo marka haddaba cid kastoo danaynaysa inay design samaysato ama guri casri ay dhisato nala soo xidhiidho waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa lambarka shaashada ku qoran aad iyo aad ba mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.